بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada mar kale iyo fariin waxbarasho oo labaad maandhaweyd waxaan idin soo jeediyey talooyin iyo fariimo ku socday waalidiinta Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan dugsiyada sare hoose iyo dhexe maxaa la yiraahdaa kuwa dhigto fariintan maanta waxay ku wajahan tahay gaar ahaan ardayda jaamacadaha kuwa jaamacada goordhow galay kuwa gali rabo iyo maxaa la yiraahdaa kuwa dhaxda ay u sii marayso oo ku sii jiro inay ka faa'iideystaan oo maxaa la yiraahdaa aan ayagana u gudbino fariimo aan isleenahay inay wax ka tari doonaan safarkooda waxbarasho iyo safarkooda jaamacadda inta badan marka waxay uga duwan tahay aqoonta hoose ama waxbarashada hoose ee asaasiga waxay uga duwan tahay dhowr qodob ayay uga duwan tahay inta badan waxbarashada hoose waxay ku qotontaa ama xooga saaraysaa qofka laba qodob inay ka dhisto qodobka koowaad oo ah barbaarinta qofka tarbiyadiisa iyo jihayntiisa iyo maxaa la yiraahdaa mabaadi'dii noloshiisa lagu beeri lahaa in loo diyaariyo qodobka labaadna waxa waaye in aqoon guud iyo afkaar guud laga siiyo guud ahaan nolosha waana taas sababta loo siiyo maadooyin aad u kala duwan oo maxaa la yiraahdaa aan shughul isku lahayn ayaa la baraa luugadoodii afkoodii ayaa la baraa marka labadaas qodob labadaas hadaf ayay leeyihiin waxbarashada dugsiyada hoose iyo sare iyo dhexe jaamacadda marka way ka duwan tahay nidaamkani maadaama la yiraahdo waxbarashada sare la yiraahdo waxay xooga saartaa iyadan dhowr arrimood bay xooga saartaa koo waxa ugu muhiimsan in qofkan ay xirfad u diyaariso yani qofkan suuqa shaqada markuu galo muxuu qaban doonaa ayay u diyaarisaa xirfad ayay maxaa la yiraahdaa ay bartaa qodobka labaad qofka ay maxaa la yiraahdaa ay jaamacadda dhigto la rabo inuu ka dhaxlo ama loo diyaarinayo waxa ugu muhiimsan qofka maskaxiyan in loo dhiso qof fikiraayo fikir leh mowqif leh maxaa la yiraahdaa dhacdooyinka dhacayo meelka istaagi karo in laga soo saaro ayaa hadafka labaad uu yahay ma ahan qof maxaa la yiraahdaa meel kaliya isaga xiran ama maxaa la yiraahdaa dameeradaan raacda iska ah oo rahankiisa odaba iska raacayo qof waa inuu jaamacadda ka soo baxo lama rabo waxaa la rabaa qof madax bannaan fikriyan xirfad ahaan dhinac kasta u madax bannaan inay soo saarto ayaa sidoo kale ahdaafta ay jaamacadda loo gala ka mid ah qodobka saddexaad qofkan academically in maxaa la yiraahdaa cilmi baaris uu sameyn karayo waana taas sababta qofka maqaalaad looga diro wax soo qor la dhaho cilmi baaris loo sameeyo saddexdaas hadaf ayaa ugu muhiimsan nolosha jaamacadda marka in badan waxaa dhacdo qofka maxaa la yiraahdaa in dadka qaar saddexdii hadaf ee jaamacaddu lahaydba ay ka lumaan ilaahay ma qadaro qaarna ay ahdaaf ka mid ah ay xaqiijiyaan oo qaarna ay ka tagaan ayaa suurtagal ah inta badan hadda dalkeena markaad eegtid waxaa suurtagal ah in maxaa la yiraahdaa qofka xirfad gaar ah loo diyaariyo oo xirfadii loo diray uu wax ka barto sidoo kale academical ahaan uu kasoo baxo qof marar qaar wax baari karo wax isku soo aadin karo inuu yahay laakiin maskaxiyan aanan maxaa la yiraahdaa wax badan aan lagu soo kordhinin taasna inta badan waxaa u sabab ah hadba sida ay u dhisan yihiin ama ay u dhisan tahay halka aad wax ku baranayso dadka wax ku barayo maamulkaaga iyo macallimiintaadi ay u diyaarsan yihiin ayaa saameyn aad u ballaaran oo xoog ah kulle arrintaasi maxaa la yiraahdaa marar qaar waxaa dhacdo in maskax ahaan keliya lagu diyaariyo laakiin xirfadihii wax ay si kaa noqdaan waa iska suurtagal marka inta badan waxaa muhiim ah qofka in saddexdaas hadaf fariimood ee jaamacaddu leedahay uu ka mira dhaliyo ayaa muhiim ah marka dhowr tal ayaan rabaa inaan siiyo maxaa la yiraahdaa ardayda jaamacadaha dhigato waxaa ugu muhiimsan kow inay maxaa la yiraahdaa ay ururo ku biiri karaan ardayda ururada jaamacadda ka jiro ee jaamacaddu leedahay gudaheeda iyo urur banaanka ah haddaysan jirin in ardaydu dhexdeeda ay asaasi karaan ay ururo asaasi karaan muhiim ma ahan ururadu inay isku mid ahaadaan yani ururada qaara ka shaqeynayo tusaale xirfadaada wax ku saabsan hay-ada qaara ka shaqeynayo maxaa la yiraahdaa u doodista dadka maxaa la yiraahdaa laga tirada badan yahay hay-ada qaara waxaa suurtagal ah inay xooga saaraan u doodista environmentiga ama deegaanka hay-adista qaara waxaa waye waxay tusaale ahaan wacyi iyo maxaa la yiraahdaa iyo dacwo ayay ka shaqeynayaan soo nooleynta diinta ayay xooga saaraan marka adiga waxaa muhiim ah in hay-adahaasi mid ka mid ah ama dhowr xaba ka mid ah ay maxaa la yiraahdaa aad luku leedahay aad ka mid tahay waxyaabahan aad u xasuusto oo marar badan aan ka xumaado waxaa ka mid ah hay-adaha qaar ee dalka ka jiraan maxaa la yiraahdaa ama jaamacadaha qaar ee dalka ka jiro keliya waxay rabaan ardayda inay lug kula jiraan hay-adaha ay jaamacadda ku xiran tusaale ahaan qaarkood waxay samaysteen waxaan loo bixiyey usbuuca dhaqanka ee maxaa la yiraahdaa jaamacadda ayaa jiro waa laga maarmaan inuu jiro laakiin ma yihiin waxaan wax maxaa la yiraahdaa ardaydu ay u madax banaan yihiin oo ayagu ay soo organize gareynayaan oo soo habeynayaan ma yihiin
ma jiraan sidoo kale arrimo kale ay jaamacaddu ka madax bannaan oo ardaydu u madax bannaan yihiin oo ay ardaydu sameyn karaan ama banaanka jaamacadda ku qaban karaan ama gudaha jaamacadda ay ku qaban karaan iyadana aad ay muhiim u tahay sababtoo ah halkaas qofku wuxuu ku baranayaa madax bannaani wuxuu ku baranayaa go-aan gaarid wuxuu ku baranayaa la shaqeynta dadka iyo asxaabtiisa inuu la shaqeeyo waxyaabahaas dhan halkaas ayuu ka baranayaa qodobka labaad ee muhiimka ah oo maxaa la yidhahda aan talada kusku biirinaya ardayda jaamacadda waxaa waaye iyadan sidoo kale akhris madax bannaan inay sameeyaan in يعني طبعا waad akhrinaysaa boqolkiiba 50 iyo ka badan waxaad xooga saaraysaa wax aad baranaysaa ayaa xooga saaraysaa laakiin sidoo kale waa inaad samaysaa maxaa la yidhahda akhrin jaanibi ah yani oo dheeri ah inaad samaysaa sababtoo akhrintaas waxay ku tusaysaa yani shakhsiyadaadii nooc qofka aad tahay bay ku tusaysaa waxay kaa daaweynaysaa waxyaabo badan oo cuqdada ah nafsadaada ku jiray bay kaa saaraysaa waxay ku tusaysaa maxaa la yidhahda halka aad rabto ahdaaftaada iyo noloshaada inaad u jihayto ayaa halkaas ka baranaysaa marka akhrinta wax aad u mahad celin doontid noloshaadii dambe waxa ugu muhiimsan qofka hadba siduu wax u akhriyo buugaag kala duwan u akhriyo ayay ku xiran tahay kuma dhahayo hal majaal kaliya akhri majaalaad kala duwan qofka inuu akhriyo maxaa la yiraahdaa yani ayaa qofku nafsiyadiisa ku dhigmaysaa ku maxaa la yiraahdaa ku adkaanaysaa waliba marar gaar waxaad xooga saaraysaa akhrin kartaa afkaar aad isleedahay dad ka aragti duwan dad maxaa la yiraahdaa buugaag ay qoreen dad ka soo jeeda meelo dadka aad joogto dad aan ka soo jeedin buugaag majaalaadkaas markaad akhrisid waxaad kusoo bixaysaa qof maxaa la yiraahdaa yani furfuran waxyaabo badan u kala bixi karaan oo nafsadiisuna si sahlan ku garan karo u fahmi karo ayaa halkaa kusoo bixaysaa talada ugu dambeyso aan siin lahaa ardayda jaamacadaha ee aan kusoo gabagabeynaya waxay tahay haddii ay suurtagal kuu tahay inaad ka shaqeyso xirfadda aad baranayso waxa la xiriiro iyadana fursad u ay haddii aad baranayso maxaa la yiraahdaa caafimaad haddii ay ka shaqeyn karto baraatig aad ka heli karto ama meel caafimaad la xiriirto ama isbitaal ama farmasi ama wax lug ku leh aaday u fiican tahay haddii aad banking iyo xisaabaad iyo waxyaabahaas aad baranaysidna haddii aad bangiga access u heli kartid oo ka shaqeyn kartid ama baraatig ku sameyn kartid iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha maxaa la yiraahdaa network fiicanna kuu sameynayo sidoo kalena aad ku baranayso waxyaabaha aad baranayso sirtooda iyo xogahoodana aad ku baranayso ayay ka mid tahay marka aad ay muhiim u tahay qofku waxa uu baranayo inuu ka shaqeeyo aad ay muhiim u tahay intaas aan kusoo koobayaa haddii aan soo khulaaseeyo waxyaabaha idin dhahay waxaa ka mid ah ahdaafta jaamacadda ugu muhiimsan oo loo gaaro waxaa ugu muhiimsan qofka in xirfad loo diyaariyo kaareer uu yeesho labo in qof maskaxiyan u madax bannaan dhisan inuu kusoo baxo saddex in qof academically ahaan cilmi baaris sameyn karo wax ka qayb qaadan karo inuu noqdo talooyinka aan siinayna ardayda waxaa ugu muhiimsan kow inay ururada ku biiraan ama ay ururo asaastaan ayagu leeyihiin dhexdooda ah ay samaystaan in akhris ka madax bannaan culumta jaamacadda ka madax bannaan ay samaystaan sidoo kale in haddii ay suurtagal u tahay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay baranayaan ay fursad u helaan ka shaqeyn karaan aad ay u fiican tahay halaas inahaas ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu